habeenoo talada ilaahay waxaan ugu jirtay Naciima Joker say kaadida nooga dhameysaan u qoslaynay ayaa waxay tiri warsan iga daaya annagu waa fahmi weynay shoo isba noqotay frozen aan noqoteen أنا طالع يا سلام waxaan mariyay ilaahay xabiibti waxaan mariyay hablaha dhalinyaro hadda waxaan ku daawanaya hablihii macaawlaalaha iga yareeraa oo role model ah u tahay hablaha yaryar maxaa oran lahayd ee raba footstep-kaaga inay raacaan waxaan ku dhihi lahay is-aamina qofka markii uu rabo meel in uu gaaro ama uu hami leeyahay waxaa ko muhiim ah in uu asiga is-aamino in hamigaasaytii uu fulin karo and then kabacdi waxaa muhiim ah in dadka oo aad la kulmi doontid ay isku jir noqon doonaan dad ku dhahayo waxaanay timo ku suurtagalaayo iyo dad ku dhahayo hore u soco inaad kala baratid qofkii oo daacad ay ka tahay iyo qofkii aynan ka ahayn aad suubsatid saaxiibo iyo circle oo fiican oo adiga ku fududaynayo sidii aad ku noqotid qof oo dhiirigelin leh oo meeshii uu gaari karo politics waa sport ay dhahaan it's survival of the fittest anybody or sports ciyaaro wuu fahmi karaa and truly it's about practice right and crafting yourself into being the best that you can be and then politics can I think dumarka way u adag tahay because dadka badanaa ma aaminsana inaana ka leaders aan noqon karno inaan wax maamuli karno in guriga maahine meel kaleete aan kasoo bixi karno badanaa waxaad arkaysaa ragga markii ay dhahaan siyaasiya noqonaya qof oo weydiinaya male maxaa taqaanaa maxaa og tahay maxaa fahmi kartaa gabar laakiin everybody wuxuu rabaa in uu boqol wax weydiiyo steps uu marsiiyo and then nimanka also expectationadii kaleet way ka kala yaraanayaan waxaa lagu leeyahay walaalka hamiyuu leeyahay waxaan u fududeey kan u suubi kaas u suubi gabadha waxaa laga rabaa iyada wixii oo dhan inay suubiso and then hamigeedina iyada inay gaarto waxbarashada taas waaye wax kasta gabar ay raadsanayso wixii shaqooyinkii dumar ahaan loogu talagalay iyo wixii kaleeta ay rabtay waaye ragga jidadka looga dhaqaajinaya wax kastoo obstacle ah waa laga leexinaya so I think badanaa dumar haddaan nahay laba choice aan haysanaa soo maaha inaan hamigeena aan raacno oo wixii aan rabno aan noqono ama in aan normal caadi iska dhigno oo ilma aan korsano gurigeena aan joogno qof xaaskiisa aan noqono marka traditionally way nagu adag tahay maskax ahaan in haweeney oo ilma haysato guri maamulanayso guriga banaankiisana hami ay ka yeelato hamigeedana uu yahay hadda hami weyn oo rabto wax weyn inay taariikh meel fiican ay ka gasho marka challenge wuu weyn yahay inaadan waxaas dhag u dhigin oo aad iska fahantid like that's just tradition and you just bulldoze you go for it and for me life it's been that way I had children very very young gabadheedu ugu weyn hadda waa almost an adult and I also have a little baby to daba jir and like life just continues you just figure out and hore u soco dadka say dhahaan oo kale you just continue and like dadka waxa ay ku dhahayaan qofkii ku dhahayo shaqadan adeeg ma lagugu talagelin booskaas ma gaari kartid jagadaas ma heli kartid waxaas dhan dhaka u dhigin because I mean dad anoo kaleetaa jiro oo I shouldn't be meeshaan maanta aan joogo but I'm here because I believed in myself and everyone else did. That's beautiful wallahi. That's laba wax baan ka qaatay ilhaane waxaan ka qaatay believe in yourself you have a good circle good real friends yani dad
kalsooni aad ku qabtid. That's beautiful advice. I mean, it's timely, right? I think dadka badanaa like waxa qofka oo dadka circle-kaaga ku jiro, you think haddii aad iyaga ka tagtid wax ma ku suurtagalayo. And sometimes you have to let things go in order to create more space for others to come in who are going to help you be the best person that you can be. That's beautiful, wallah. Takale an ilhani wala aan rabina ku weydiina, what inspires you? Yani what motivates you? Hadda the shanta Soomaali oo dhan ba proud of you. Yani hadda caawa xaqan mas'uuliyiinta ba ku jira wasiiro xildhibaanin dadkii magac iyo sharaf ku lahaa dan baxdi fanka sportiska Soomaali oo dhan ba matasha maanta. Difficult hard times no waa haysata here and there. Maxaad motivates you? Adiga maxaa ku motivate gareeya? You inspires you every day to go to the work. I know adiga rooneda u maleynay Somali English challenge ana wada haysto labadeenaba. I'm not in your level yet. Level that you might get. Somali isticmaashido aan ka xado adigina. Ya ilaahay. Yala, right? Haddii aad raadsanaysid wax kasto wuxuu ku noqon karaa motivation. Aniga I think mostly waxaan motivated aan ka ahay like ciyaalkayga. I know yaraanteydii waxyaalo badan possible maynan ii ahayn because environmentigayga different ahayd. And I motivated ciyaalkayga inuu every single thing possible u ahaado, so I want to create a different environment than the one aniga aan kusoo koray, culturally, politically, religiously, and family-wise. You know, I think opportunities are limited when you don't have a good external environment to exist in. Exactly. And oftentimes we don't think about that external environment. You know, we forget that there are so many challenges, there's so many obstacles that can be removed if there was a societal growth. Okay, wow. And so I think ciyaalkayga waxaan politics ugu jiraa for them and other ciyaalka oo iyagoo kaleeta la mid ah. And so I can create, you know, social, economic, and environmental equality, so they can exist in a better environment than me. I think badana dhibaatooyinka badan aan la kulmo really is out of that motivation, because ma aaminsani like waqti badan inaan haysano, right? Waxaan aaminsanahay waqtigeena aad u yar yahay to be impactful. And so dadka badanaa waxay aaminsan yihiin like 10 sano iska sug, 20 sano iska sug, and then eventually you'll get somewhere. And I think, you know, like ciyaalkayga time ma haystaan, ciyaalka kale adduunyada ku nool time ma haystaan, so we do what we can today, as much as we can, so there's a better environment for them, you know? Yeah. Waan ogahay inaan waqti hayn. Saddexdeedii su'aalood back to back. Favorite food? Favorite food, bariis iyo hilib ari. Yes. Very Somali that way. Moss la'aan, like, I'm not a fan of moss. Here we go. A Somali household without banana. Maaha Somali. Ciyaalkayga actually like Somali DNA ga waa very interesting, because wax kasta waxay rabaan Somali inay moss inay ku cunaan. I don't know meel ay ka keeneen because I need moss ku cuni. That's beautiful. So they're very strong Somali DNA. That's a better wallah. Hey, McDonald's, I'm a Burger King. McDonald's. Fries score is excellent. Mercedes, I'm a BMW. None. I don't like flashy things. Gaariyaasha jarmalka waa ka soo horjeedaa, obviously. Very simple girl. Dan waan ogolahay taasa. Iyaba rabay walaalo su'aashan cid kastoo aan ku soo xidhaa, maxaad uga tegaysaa fariin
kunamaanka kuna hadda ku daawanaya iyo kuwa gadaalba kaa daawan doonaa oo fursad bay hadda haystaan inay ku wada arkaan dhammaantoodba laba fariin aan uga tegi lahay mid ku saabsan pandemiganeyd hadda aan ku jirno dad waxaa jiro oo nasiib leh adiga meeshaa joogtid oo kaleeta joogo oo dhaqdhaqaaqooda uusan ka xayirmin oo noloshoodii sidai caadiga u wadan lahaayeen wadamo dad aqli ay leeyihiin ay rangaraynayaan ama madaxweyne ay u yihiin ku nool and then dad anagoo kaleeta oo madaxweyne aan science iyo waxba aanan aaminsanayn uu madaxweyne u yahay I want dadka labada dhinacba ay ku nool yihiin in mid ay xasuustaan in anaga oo dhan hal adduunya aan ku wada nool nahay right and kulligeen connected aan nahay so adiga whatever maanta aad haysatid qof walaalka ayaanan haysanin qof walaalka maanta wuxuu haysto inaan adiga haysanina laga yaabaa and that's okay and the best thing we can do is wish the best for everyone else in aan ku fikirno like globally maxaan dadka ku taakulayn karnaa maxaan qaban karnaa anseen qof kaleete booskiisa isku dhigi karnaa oo aan uga fikiri karnaa dhibaatada haysato ama wixii situationka uu ku nool yahay and I think that makes us a better global citizen if we're worried about others we become better global citizens and then I think secondly because waxaa tiri dhalinyaro yaryar oo badanaan na fiirsanayaan and I think this is just message ahaan soomaalida waxaan badanaa ilownaa soomaali haddii aan nahay in kulligeena aan hal family nahay qof kasta oo soomaali ah wixii dheefkana waa isla sheergaraynaa dhibaatadana waa isla sheergaraynaa so maanta ilhaan cumar haddii ay tahay congresswoman adduunyada oo dhan waxay qof soomaali kastay arkaan waxaa laga yaaba inay jidka joojiyaan ay dhahaan ilhaan ma taqaanaa ilhaan congresswoman waa qof walaalkeen maanta haddii dhibaato uu geysto ama uu dembi galo qof kasta oo soomaali ah oo laamiga maraayo waa la joojinaya waxaa la leeyahay ninkaasiti oo dadka dilay oo magaciisiga suubiyey soomaaliga ma taqaanaa kaas mis taqaaniin so marka haddii aan dhibki iyo dheeftibo aan isla wada wadaagno inaan xasuusnaano right in anakii aan isku noqono family oo isku safeguard gareeyo right oo iyagii is og oo dareensan aniga maanta wax kasta aan meel kasta aan gaaro walaalkii xumaantiisa ima dhaafayso aan dhibaato kasta aan leeyahay walaalkii sharaftiisa aan ku xisan karaa so markii aan waddankeena ka fikirayno markii aan ka fikirayno dadkeenaan diasporada ku nool markii aan ka fikirayno walaalaheena nasiibka leh oo anigoo kaleete meel fog gaaray ama wax noqday markii aan ka fikirayno dadkeena dhibaataysan oo ama xabsi ku jiro ama daroogo iyo addiction la struggle garaynayo in aan xasuusnaano qof soomaali ee xumaantiisa markii aan sheegno in kulligeen xumaanteena aan sheegino soomaali ah wanaagiisa markaan sheegno kulligeen wanaageena inaan sheegayno aan uga fikirno truly because ani family weyn aan ka imaaday and like family is complicated but ultimately we're family so maaha like family is very complicated and wixii anaka family ahaanteena aan xasuusnaano like to wish each other the best and to ultimately help one another when we are struggling. I see dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo addiction la struggle garaynayo and dadka badana ay si xun uga hadlayaan ama ay rafaadinayaan ama ay dhibaataynayaan ama you'll see like that mental illness and la struggle garaynayo hooyooyin masaakiimiin ciyaal yaryar keligood korinayo dadka xumaantoodii ay ka shaqaynayaan meeshay dhihi lahaayeen qofkan familkeygii waayo walaashayoo kaleeta aan uga fikiro walaalkeeyoo kaleeta aan uga fikiro maxaan ku suubin lahay maanta hadduu walaalkey ahaan lahay cabdigaasay tilaamiga taagan maxaan ku suubin lahay haddii caasho oo 3 ilmood haysato ay walaashii ahaan lahayd and saas aan iskugu take care garayno because adduunyada family ahaan ay noo aragtaa adduunyada waxay noo taqaanaa in anaka dhan iswada dhaqaano you can't imagine every single where I go dadku way istaajinaan they're like oh
New York degan ama ko Sweden aan kusoo arkay, you know, somebody like Finland, there's some guy in politics, Mr. Kanin, waxay u maleeyaan kulligeena inaa Rolodex meel aan ku haysano oo check aan suubinoyno Suheer wuxuu suubiyey kanna caash intay martay cali intuu yeelay ay dadka like truly that's how they think, you know, because familka waa okay so aha, you know, walaasha waxay kusoo kacday iyo walaalkaas uu ku seexday. They assume anaka that way in our function galena accountability in our high for one another. And so to think that way, like to also do have accountability, to think so and I think that's ultimately Somali ahan san kuguuleysanayno Somali ahan aan meel fiican ku gaarayno Somali ahan san anaka isku aragno si adduunyada noogu aragto. You know, that was amazing wallahi. Waxa ka dambaysa oo Mama Jawahir Barqab oo gudoomiyaha haweenka Muqdisho iyo gobolka oo dhan oo kugu xigta hadda maxaa iyadana fari lahayd ama su'aalaha si weydiin lahayd. I know shaqadooda inay aad iyo aad ay u adag tahay, you know, Somali markasta aan ka hadlo waxaan ka hadlaa inta dhibaatooyin ay soo martay iyo progresskii ay suubisay. So Somalia badana, you know, dadka waxay ka fikiraan like xumaanteeda keliyo, and I think it's important inaan xasuusano meel fog inaan ka imaanay. And intaasaytana alxamdulilah aan dhahno, you know, like dadaa kasoo shaqeeyey, dadaa joogo, dadaa noloshooda riska garay every single day. Ani waan tagay 2 mar bad waan soo baxay dadaa jiro oo joogo oo shaqadaasayta qabto oo isku dayayo progress. You know, whatever you can say about them, still they're putting their lives at risk and doing the work. And I think dadka oo Jawahir oo kaleete oo shaqada ka shaqeynaya shaqooyinka ku saabsan sidee society uga shaqeyn lahayd dumarka iyo gabdhaha nolol fiican inay ku yeeshaan wadan ay ka yihiin majority oo ayna yihiin dadka ugu dhibaataysan waa shaqo muhiim ah. Marka Ramadan Mubarakan bahaya Eid wanaagsan, and Ilaahay ha ku fududeeyo, and Ilaahay ha ku mahad celiyo shaqada ahaysi. Anakuna waxaanu ku leenahay anoo ku hadlayo kuna maanka qof walaalkay Mataan waxaanu ku leenahay Ramadan Mubarak. We love you, we support you. Thank you for coming by Ilhane walaalo. Love you guys, bye. Okay. Bye. Thank you. Wow. إلهام عمر نحن وأهلينا مالك يوم الدين. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحا او دهي افر وحي